nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma jiro qof warwar iyo murug iyo dhibaato iyo xanuun uu ku imanayo oo ilaahay baryaya. allaahumma innii cabduk wabnu cabdika wabnu amatik. ilaahu anigu addoonkaagii baanahay, addoonkaaga inankiisii baanahay, addoontaada inankeedii baanahay. naasiyatii biyadik, fooddayda iyo naftaydu gacantaaday ku jirtaa. maadin fiya xukmuk, xukunkaagu waa igu fulayaa hadal la'aan. maadin fiya xukmuk cadlun fiya qadaa'uk, xuxi aad igu xukuntay qadahaaga ahna waa cadaalad wey. cadlun fiya qadaa'uk as'aluka bikulli ismin laka, waxaan ilaah wax kugu weydiisanayaa magac kastoo aad leedahay oo magacyadaada ka mida. samayta bihi nafsak, magacaaga naftaada aad ku magacowday. aw anzaltahu fii kitaabik, ama kitaabkaaga aad ku soo dejisay gudihiis. aw callamtahu axadan min khalqik, ama aad bartay cid khalqigaaga ka mid ah. aw ista'harta bihi fii cilmi alghaybi cindak, ama aad ilaahow ku daysatay oo aanay cidi kula ogayn magacaad leedahay iyo tilmaanaad leedahay oo aanay cidi kula ogayn cilmigaaga qarsoon ee agtaada yaalla ku sugan. intaasan ilaahu wax kugu weydiisanayaa magaca aad leedahay. qur'aanka cadiimka ilaahu qalbigayga mid barwaaqo iyo hanuun iyo toosnaan u ziyaaday ilaahu ka dhig. ilaahu dhibaatada i haysa iga dulqaad, mushkiladda i haysata iyo walwalka iyo murugada ilaahayow iga dulqaad. hadduu dayn yahay ilaahu daynka iga bixi, hadduu yahay maxaan ku idhaahdaa xanuun ku hay ilaahu xanuunka iga dulqaad, haddii uu yahay cidhiidh ku haysta ilaahu cidhiidhka iga dulqaad, haddii gaaja jirto ilaahu gaajada iga dulqaad, hadday colaadi jirto ilaahu colaadda iga dulqaad, hadday abaari jirto ilaahu abaarta iga dulqaad. markaad ilaahay sidaa taar saxaabadu waa dhegaysanayaan rasuulku xadiidka u sheegaya salawaatu rabbii wasalaamu calayh. markaasay tacajabeen oo xadiidkii la yaabeen. yaa rasuula allaahi yanbagii lana an natacallama haa'ulaa'i alkalimaat, rasuulka ilaahayo miyaanay habboonayn erayadan aad noo sheegtay qiimaha badan ee caqiidada ah inaannu baranno, miyaanay habboonayn? rasuulku wuxuu yidhi haa, qof kasta oo maqlaa waxaa habboon inuu xafido oo barto buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, suu ilaahay ugu baryo subxaana wa tacaala. ilaahay agtiisa waxa yaalla lagama xadi karo, xoog loogama qaadi karo, lagama khiyaamayn karo, lagama dafi karo. tacaala allahu can dalika culuwan kabiira. addoonnimaan looga qaataa, cibaadaa looga qaataa, daacaa looga qaataa, ku dhowaanshaa looga qaataa, ku xidhnaanshaa looga helaa. allah wuxuu gacanta ku haya subxaanahu wa tacaala. hooyadaa ka warhay, hooyadaa wehel ka dhigo, hooyadaa soo dhowee, hooyadaa la sheekayso, hooyadaa ka farxi, hooyadaa u shaqee, hooyadaa dhaqaalee, hooyadaa ka warhay. fa hamma aljannatu, jannadu halkaasay taallaa. marka haddii adiga hooyadaa nooshahay, magaalana ay kula joogto 24 saac, waqti intee leeg baad siisaa hooyada inaad la joogto, la sheekaysato, xaaladdeeda waraysato. maanta nin weyn haddaad tahay inay kaasii weyntahay intaasoo jeer baa laga yaaba, kuwa adig kaa waaweyn bay dhashay. waqti intee leeg baad siisaa? waqtigaad meelo kale ku bixinayso inaad iyada ku bixisaa fiican. jaaniskaad hayso ood waraysatid oo u sheekaysid, ka ducaysatid, waqti badan aad ku bixisay, qiimahaasaa islaamku siiye. laakiin dadka badankiisu kuma baraarugsanaa. markaad weydaad garan doontaa haddayba kaa horrayso, waa iska ciilkaambin doontaa. alla maxaan saa u yeeli waaye, alla maxaan caynkan u samayn waaye. waroy maantaad nooshaad qoyan tahay, hooyadaana qoyan tahay oo joogtaa, waroy ka faa'iidayso.